diabetes sonkorow macaanka noociisa koobaad noociisa labaad aynu ka hadlayna maanta waxay ku kala duwan yihiin waa su'aalo aad idinku isoo weydiiseen oo aad kala soo dhex baxdeen fiidiyoyadii hore ee ku saabsanaa xanuunka macaanka fahamkiisa iyo sida loola dhaqmi karayo so waxaynu maanta sii faahfaahinaynaa labada nooci waxay ku kala duwan yihiin insha Allah so dhammaan soo diyaar garooba Assalamu alaikum, welcome to Aziz TV show. Maanta waxaanu ka hadlaynaa xalqad kale oo dhamaystiraysa xalqadihii hore ee ka hadlayay macaanka. Okay? Kana raali ahaada horta waxa jirta dabayl. Hargeysa la joogo waa xagaagii, soo ka raali ahaada. Okay? Waayahay guys, insha Allah mawduucaas ayaan idin faahfaahinaya idinka isoo weydiiyay su'aalaha aasee maxay ku kala duwan yihiin gaar ahaan marka daawateen fiidiyoyadii ka hadlayay cuntooyinka macaanka lagu daweeyo hore saddex horeen ka soo hadalay saddex fiidiyo mise ilaa afar fiidiyo mawduucan yani waan soo fududeynaya sidii aan u soo fududeeyay kuwii hore si maskaxdiinu ay u qaadan karto insha Allah aqoontii oo fudud oo la idin jajabiyay oo qofkii yani macquul u ah insha Allah way guys macaanku waa labada nooc type 1 ayaa jira iyo type 2 okay waxyaabay ku kala yara duwan yihiin ayaan insha Allah idin sheegaya type 1 waxa weey wuxuu xisaabsan yahay guys waxyaabaha la yiraahdo autoimmune disease waa xanuuno ku dhaca difaaca jirka ayuu ka mid yahay type 1 ku okay type 2 waxa weey nooc kamid ah xanuunada disorder-ka ah ee lala tacaali karo insha Allah waxna laga qaban karayo waayahay xalaqadihii hore markan aad culayska u saaray cuntooyinka macaanka u fiican ama lagu daweyn karayo dad idan kamid waxay soo weydiiyeen ama yiraahdeen aasiya waxaanu qabnaa type 1 dad badan waxay yiraahdeen type 2 ayaanu qabnaa Allah u wada sahlo dadku Ilaahay caafiyo maba yaraa waan yaabay maba yaraa dadka macaanka ka cabanaya okay yani horta anigu waa ka xumay wallahi inaan noqdo hadii ay markii horeysay aad maqashaan hadalka inaan noqdo qofkii aad ka maqasheen I'm very sorry laakiin type 1 dawo ma laha guys macal asafi type 1 ku dawo ma laha fiidiyoyadii hore aan ka soo hadlay oo dhan macaanka iyo cuntooyinka u fiican macaanka waxyaabo lagu daweynayo iyo waxay ka hadlayeen type 2 ga dadka qaba so fiidiyoyada hore oo dhan waxay u gaar yihiin guys type 2 inkastoo type 1 na loo baahan yahay in ay isla cuntooyinka cunaan cuntooyinka markay cunaan macaankoodii ayay controlayaan laakiin kama daweysmayaan xanuunkii anaana idin sheegay farqiga insha Allah wuxuu kan u dawoobi waaye ee kanina insha Allah u dawoobayo okay type 1 hadaynu ka bilaabno because isaga lagu sii dheeraan maayo type 1 waa xanuun soo booda bila ogeysiis gaar ahaan guys yani daraasadaha la sameeyay caalamka intii gacanta lagu hayay macaan daraasadaha ka soo baxo dhan waa xanuun soo booda oo waliba ku soo booda da'yar yani type 1 ku qofka wuxuu ku dhacay isagoo iska yar da'yara waanu soo booday waana xanuun difaaca jirkii autoimmune disease weeyaan waxyaabaha la yiraahdo yani difaaca jirka ayaa halka shaqayn waayay qaybta markay noqoto okay maxay tahay macnaha hadalkaasi waxa weeyaan guys waan idin sheegay markay wax macaan cuno maskaxdeenu iyada jirkeena oo dhan maamusha afkeena markaynu ka cuno wax macaan isu bedelaya ama macaana maskaxdu waa tafriinta u diraysa pancreaska oo dhanse insulin soo saar insulin qaada macaankan oo ka saarta unugyada Ilaahay ugu talagalay waayahay type 1 ku pancreaski insulinta soo saari jiray ma soo saariyo insulin haba yaraatee qofka pancreaskiisu wuu joojiyo wax insulin aba ma siinayo jirkii so qofku markuu macaan cuno maskaxdu caawiyo bari haday leedahay pancreas oo insulin baa loo baahan yahay insulin ma jirto
insulin ma jirto. waa taa type 1ku waa caynka jirkaagii insulin ma samaynayo macaankii qaado saarta. marka xalkii muxuu noqday dadka in irbadaha insulinka loo qoro oo tii beerku soo saaray loogu bedelo inay isku mudaan insulinka iyo irbada isku mudaan. markay isku mudaan insulinkaas wixii macaan uu ka qaadaya uu ka saaraya. okay waa ka macaankii ka dhimaya de waayahay iyadoo isaa tahay oo qolooyinka qaba type 1ku ebed noloshooda inta ka hadhay waa inay insulin qaataan iraabka insulinkii ku noolaanayaan. laakiin cuntadoodiina waxaa la rabaa inay ilaaliyaan. cuntadoodii waxaa la rabaa inay qaataan cuntooyinka fiican ee nafaqada leh kuwii aan ka hadlo dhan macaanka. waxaa la rabaa jimicsigii inay sameeyaan oo muruqoodii iyo xooggii jirkooda ilaaliyaan. caafimaadkoodii si kasta u ilaaliyaan. fiid seexdaan balwadaha iska ilaaliyaan. dhinac kasta yacni noloshoodii soo duuduubo caafimaadkoodii xag kasta waa inay ilaashadaan insulinkoodana iska qaataan. biidni illaahna waa iskaga noolaaneen muddo aada u dheer ilaahay intuu uga qoray. laakiin dad badanoo cimriga 70 iyo 80 iyo ku gaarsaa waa la arko waa badan yihiin. is ilaalo badan baa loo baahan yahay halkan. marka walaalayaal macnaha type 1 dadka qabo waa ka. okay haddana waxaan imanaynaa type 2. type 2ga macnihiisu muxuu yahay? macnihiisu waxa weeyaan guys markaad macaan cunto ee maskaxdii tiraahdo pancreas insulin baa loo baahan yahay. type 2gu pancreaskii insulin wuu soo saaraya. insulin caadi buu usoo saaraya. laakiin maxay mushkiladii noqotay? insulintii qaadi mayso macaankii. okay insulintii qaadi mayso waa waxa loo yidhaahdo waxa weeyaan insulin resistant. yacni way diidaysaa insulintii macaankii way isdiidayaan ma wada shaqaynayaan. awal insulintu intay qaado macaanka ayay saaraysay. number 1kii insulinba ma jirto pancreaska maba soo saarayo. kan pancreaska caadi buu usoo saaraya laakiin dee waxba qaban mayso. waatan insulintii oo soo baxday haddana macaankii jirka waa ka buuxa. maskaxdii haddana waxay odhan insulin baa loo baahan yahay. maskaxdu iyadu waxay kusoo celcelinun insulin baa loo baahan yahay insulin waayo maskaxdu waxay tabaysaa un jirkiinu macaankii ku jiro. marka iyadu fariimaha ay dirayso ay soo celcelinayso maanta oo dhan waxa weeyaan insulin baa loo baahan insulin. pancreaskina maanta oo dhan hadduu insulin marba fariintii uu fahmo uu sii daayo insulintii ma shaqaynayso. marka jirkiina markii ka buuxsanto insulintii ku badatona dhibaata imanaysa because insulinta waxaa looga baahan yahay in cayiman oo qiyaasaysan. okay so waa ta xaaladda number 2gu. okay iyadoo isaa tahay xaaladii number 2gu. number 2ga weeyaan guys nooca daweysmaya. waad fahamteen ee la daweyn karayo. okay inta aanaynu sii wadin faahfaahinta number 2ga waxaan idin xasuusinayaa guys farti waa idinku wada taalo soo maaha. qofna kama igo in ilaahay idinkama gooye. qaada intaad farta qaadaan soo wada videoga like saara. okay saa u saara waka taabta ma cid bay intaasi culays ku haysa ya qofkii intaa awoodi waaye min allaahi hays ogaado waxaasid taabtan idinku ori like-ta. back to number 2 aanu dhamaystirno guys. number 2gu yes waa la daweyn karayaa. sidee loo daweyn karayaa? isaga gebigiisaba waxaa lagu daweyn karayaa weliba caadi xanuunkii dhammaa jidhka looga saari karaya uu qofkii biidnillah dabiicigiisi kusoo noqon karaya. waxa weeyaan xaggii cuntada. waayo xanuunkan markii horeba waxaa keenay number 2ga sababta keentay waxa weeyaan farsamo xumo xaggii cuntada. macaankoo la iska badsado nooc kastoo la iska cuno carbohydratesko la iska badsado bilaa xisaab khalkhal jirkii lagu sameeyey fara badan. okay farsamo xumo ayaa keentay. number 1ka maxaa keenay? waa autoimmune system. waa xanuun soo boodo ilaa imika lama fahmo macnihiisa si fiican. sababtu pancreaskii mar kaliya u joojiyay inuu insulintii soo saaro. daraasadaha weli waa la wada. okay laakiin kan waa la garanaya wixii keenay waa farsamo xumo. alright adaa hawada jirkaagii ka saaro khalkhaliyey oo sonkortii ka farabadiyay saad ugu shubaysay
wuu fatahay marka imika maxaa la rabaa un inaad dib u safayso jirkaagii oo aad joojiso macaan oo dhan carbohydrates wax kastoo macaan kiciya joojiso fruitska macaanka isu bedela khudaarta macaanka isu bedesha everything oo aad ku noolaato cuntooyinkii aan kaga hadlay videogii hore halkan aan insha Allah idin soo dhigi doonaa cuntooyinkaas adoo ku noolaada soonkii cuntada xiliyadeeda laysu soo dhaweynayay ee ahaa tusaale ku noqda videoga 11 la quraacanayo ilaa casarkii 3-4 la qadaynayo 7 ugu dambeyn la cashaynayo inta u dhaxaysanaad wax iska cabcabaysid aan macaan kicinayn biyo iyo liindhanaan shaah bila sonkora green tea waxay cabitaan boqolaal cabitaan ba jira caafimaadka u fiican waxaasna iska cabcabi karta laakiin cuntadaadii 8 saacadood gudahood ha ku eekaato 2 jeer si fiican wuxuu cunto ama 3 jeer okay taa iyo cuntooyinka aad cunaysay oo aad bedesho exercise-kii aad samayso waxyaabahan kaga hadlay videogaas oo soo celin maayo ayaad samaynaysaa halkan insha Allah xanuunkii absolutely jirkii caadi buu kusoo noqonaya waanu daweysmayay sababta ay tahay unugyadii xanuunka qaadib buuxsamay macaanku buuxiyay way iska dhiman doonaan ayar bay jirka uga baxayaan way dhiman doonaan unugyo cusub baa dhalanaya marka kuwa cusub markay dhashaan ay kala bedelaan kuwana meesha ka baxaan kuwan cusubna dhashaan jirkaagii wuxuu noqonayaa jir cusub 2 sanadood gudahood organskaaga oo dhan everything way isbedelayaan qofkii xanuunka qabay qof aan ahayn ayay unugyadaada oo dhan noqonayaan markaas qofkii wuxuu dareemiyay xanuunkii inuu jirkiisa ka dhamaaday marka waxa la raba guys marka jirka cusub insha Allah biidnillah gaadhaan inaad ilaashataan oo aan idin dib xadka uga saarin idinkoo khalkhalinayo cuntooyin xunxunaya so markaad bogsatid cuntooyinkan caafimaadka qaban baad ku wadaysa exercise-ka hurdadaadu fiida because hurdada maxaa markasta ugu soo celinaya hurdadu waa xilliga jirku iswada cusboonaysiiyo unugyada fiican ee caafimaadka qaba dhashaan xanuunadu jirku iska saaro iskala wada habeeyo waa hurdada fiidka la seexanayo ilaa iyo salaada subax okay so kala wareegaasad ku jiraysa wixii xunig soo dhaafayaan wixii fiican aad xejisan sad ilaashanaysid you understand so guys insha Allah waxaan jeclahay siyar oo fudud inaan idin fahamsiiyay biidnillaahi tacaala farqiga u dhaxeeya labada waan soo koobay yani kuma sii dheeraanin faahfaahintooda si aanu confusion ugu dhicin dadkiyo aanay wixii faham la'aani ugu dhicin insha Allah wixii kale aynu macluumaad ka daba geenaynana waanu soo wadnaa biidnillaahi tacaala xalaqadaha dambe insha Allah laakiin maanta intaas idinku soo koobaya waxa way aqoon yaro fudud laakiin wax farabadan idin kala saaraysay oo idin kala ifinaysay biidnillaahi tacaala su'aalaha macaanka ku saabsan aad soo weydiisaan guys digirta iyo sareenka iyo ma la cuni karaya markuu qofku qabo type 2 walaalayaal cunto kasta markay noqoto horta waxa ugu fiican khudaarta greenka ah hilibiyada oo dhan kalluun digaag hilib maraqyadii oo dabiici iyo maraqi digaaga kii kalluunka kii hilibka okay waxyaabaha inuu qofku iskaga noolaado ayaa u fiican halkan sharaabyadii cagaarka ahaa oo iska shiidanaysid oo cabitaan ahaan ka dhiganaysid waxyaabahaas oo dhan guys waxyaabaha aad garanaysid adigu inuu macaanka kicinayo markaad cunto aad qiyaasto aad arkaysid inuu kacay wad ka joogi karaysa okay miraha qaar badan waxa la yiri hadii xad qiyaasan aan lagu cunin way kicinayaan macaankii so dadkii lama oran karayo inta cuna walaalayaal idinkiis ilaaliya wixii barta cuntooyinkii waxa jirkiinu ogol yahay laakiin cuntooyinkan kaga hadlay videoga haba yaraatay macaan ma kiciyaan insulinna uma baahna so si kastaad hilib u cunto insulin uma baahanayo maraq hadaad cabto subag hadaad ka dheregto waana caafimaad iyo nafaqo insulin kaxaysoo kala wadwadana uma baahanayo jirkii ma tabayo inuu sonkor cunay okay caafimaad unba insha Allah ku gelaya so biidnillaahi tacaala ku noqda kuwa horena intaasan videogan kusoo koobay mar kale like-ta okay farta Allah idin barakeeyo farta taaga okay arayga qabata marka intaayar ma garateen guys la quuri waayo waa yara dhibaato ma ogtahay ana wax yoomkaygan video idinku soo tala galo yoomkayga dhan bar baan u jaraa okay
inaan halka idin soo dhigo wax faa'iido leh oo biidni illaahi tacaala idin anfaca ducadana iigu soo dadaala xagga commentka fartana allaha barakeeya ha taabato like-ka okay shareka facebookana ha ilaabina so insha allah saasan idinkaga tegay insha allah ilaa videoga dambe aynu ku kulmayno mac salaama